oo diyaar garowga ciida Carafa ayaa laga dareemayaa magaalada Mandheera walow ciidii hore aysan la mid ahayn ciidan oo uusan mashquul badan ka jirin suuqyada lagu gado dharka marka laga reebo suuqyada lagu iibiyo xoolaha nool oo baryaha mashquul uu ka jiray haddaba waa sidee suuqyada dharka lagu gado sharqaanleydan kamid ahay asaahate ciida maanta horta alxamdulillah ciidatan inay abar ay dadka yeelaysa ma garanay abaaraha isdaba intay tahay ma aqaan laakiin ciidan hore la soo dhaafay ciidan way ka bedelan tahay waxa suuq lira oo ma jeedin saadaan oo kale meel kala mara ma jirin laakiin maanta waa iska banaan wari aad naftaadu waad arkaysaa marka suuqmi waa iska jirtaa marka dadka adiga beeshaada macalin ku tahay marka ciidi soonfur hoogo dadka inta waa ka dhaqaaq fiicnaa laakiin hadda waxa way hoos bay aad ugu dhaasaan hadda arkayna marka anaga shaqo ma bahayna baad marka alxamdulillah marka kulay waxa yeelay abaartan baan u nisbaynaa hadda nabadgelyo waa iska fiican tahay waa ciidii hore ma aha ciidan waa ciidii oo aan hilibka iyo waxa saan cuni jirnay waa ciidii hore oo kale ma aha sababtu waxay tahay waa inaan hilib cunno hilib le aan ku baashalno waa sidaas ciidii hore ka ciidan darkii hore oo meel hooyada meel u dhigtay naag xadiga ilmaheeda darkoo meel fiican u dhigtay kuwaas loo soo bixina kuwaas lagu ciidaa dhanka kale waxaan maanta booqasho ku tagay suuqa xoolaha oo isagu ka duwanaa dhanka dhaqdhaqaaqa suuqyada lagu iibiyo dharka maadaama ciidani ay tahay ciidii Carafa ee hilbaqalashada tobankii dambe ee bisha Carafa markii la soo gaaray waxa uu sare u kac ku yimid xoolaha beecooda waa kuwan qaar kamid ah ganacsatada xoolaha oo iyagu warbaahinta istaa uga waramay suuqa xoolaha iyo sida uu yahay magacayga waa Cabdiqaadir saaki geel waxaa imaaday ilaa 100 neef ku dhow geela madax kuraadkiisa 92 qiimaha ugu dambeeya 31 waaye geela ilaahay baa mahad iyo shukri leh abaarta sanadkan jirto boqolkiiba boqol uu gadnahay ayadoo aaran husaan u gadmi jirin abaarta sanadkan hadda say u jirto aad buu nooga gadnahay geela Carafadan ariga geela looda kulli beesa ka jiro ilaahay nimcadiis sidaad geela beeciisa noo kala shaqo geela beeciiso 91 81 71 adigu ugu dambeyn 31 lagu xisaabtamaya caatada fadhiga 31 ha qurbada yararka way oo caatada hata neef buurna tama suuq Mandheeraha jawigiisaas waa alxamdulillah bismillaahir rahmaanir magacaygu waa xareed saaq maxamed marka alxamdulillah way fiican tahay ciid aad bay u fiican tahay xogeel waa nagala gataa ariga waa nagala gataa waa iska burwaaqaysan ilaahay waxba nama yeelin balse mid oo dhib baan nahay anigu saakii dadka xoolaaleyda oo geela keenayaan nahay waxa dhib hoonahay oo ka ganacsan laanahay oo ilaahay xaqiisaas nooga imaadin ciidamadii ayaa wada walba noo taagan saakadan saaka laftada hataa waxa way suuqa nagu weerartay wax ay noo dhaaftay mala xooliyaam ka gadalaan dhibkana haysto waa taas marka dawladdu waxaan ku codsanaynaa ciidamada meel walba taagan haddii amniga tahay waa inay meel naga sarto naga qabato dhibkanahay waa ka xooliyi baan ka gadan laanahay saaka suuqan geelaya waxa way anigaan kula hadlay iga qabatay marka meelahaas baa i geysay lacag baa iga qaadatay xooliyigana suuqa haddii aan gadan lahay haddana waaba gadan waay nin la haysta baan nahay marka dhibkaasaan nahay marka dawladdu waxaan ku codsanaynaa ciidamada meel walba taagan inay naga qabato oon sidaan dhib kalena ma jiro suuq waa fiicay alxamdulillah aad u fiicay ciid way wanaagsan tahay suuq aad waa eri lo geel ma sha Allah way aad noogala gataa labada ciidood ee islaamka hadba ganacsatada siyaabo kala duwan ayay uga faa'iideystaan ganacsatada xoolaha ka ganacsata waxay ka faa'iidaan ciida Carafo halka ganacsatada dharka iyo waxyaabaha kalena ay ka faa'iideystaan ciida Ciidul Fitriga maxamed sheekh maxamed al-Faqri warbaahinta istaa magaalada Mandheera.